magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa in ka badan 3 isbuuc la daala dhacaysa saameynta fatahaado dhowr ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala deegaanka kuwaasi oo bedelay wax walba dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Jowhar ayaa noqday mid hooseeya muciishadana kor ayay u kacday sababtana waxay ku sheegeen ganacsatada magaalada Jowhar oo la hadlay warbaahinta City fatahaada webiga Shabeelle oo jaray mariinka wadooyin muhiim u ahaa magaalada kuwaasi oo hadda xirmay waxaan rabaa halkaan inaan maaragtay bulshada aan la wadaagno culays magaalada ka jira oo ah in fatahaadi ay waxyeeleeyeen magaalada gudaheeda iyo banaankeeda jidadka magaalada soo galay dhibaato xoog laha ka taagan ha noqoto dhinaca waqooyi dhinaca koonfureed dhinaca raxsin bari fatahaaduhu dhul badan ay waxyeelo u geysteen marka waxaana moodaa in culaysku oo maalmaha soo socda inuu sii ziyaado ay dhici karto maadaama badeecadii oo aan ku xirnin magaalada Muqdisho boqolkiiba 99 in wixii laga keenaa amba loo qaadi jiray ay istaageen gebi ahaan isu socodka dadkuna uu istaagay aadna ay u adagtahay in magaaladu ay soo gasho amba soo galaan wax raashina oo quutul daruuriga ah wixii laga qaadi jiray magaaladan ay adag tahay in maaragta laga qaado marka waxaan uun codsanaynaa in bulshadu arintaas u wada istaagto wax ka qabato haddii Ilaahay ku roon yahay la iswada kaashado maaragta qofna cidna aan si gaar ah loogu halaynin ummaduna ay wada istaagto in badbaadada magaalada laga shaqeeyo in biyahaas oo ah dhibaato xoog leh maaragtay magaalada laga yaabo inay saameyn xun ku yeelato inaan maaragta hadda aan xoogeen isugu geeyno sidii loo xiri lahaa buuqda oo hadda dadaal fiican oo xoog leh ka socdo ganacsataduna hormuud ay u tahay sidoo kalena waxaan codsanaynaa in ummadda ama dadka deegaanka degan iyaguna ay arintaas u wada istaagaan waxna laga qabto in magaaladu ay badbaado badeecana ay soo gasho maasha Allah aniyo alxamdulillah Jowhar horta wiligeed ay fatahaad ka dhici jireen wiligeedna gacmaha meesan horsan mana maqlin Jowhar ay fatahaad ka dhacday halo gurmado waa ogeetii ka dhacday beledweyne oo intaas milyan ay ku baxday alxamdulillah Jowhar fatahaad ka dhacday fatahaad dar ugu darna ka jirto inkastoo gudaheeda noo nabad qabto balse labada dhinac waqooyi koonfurba ee ah caasimadii iyo dhankan gobolka Hiiraan xigta degmadu ay xiran tahay geerigoon ay ku jirtaa saaka wareysan raashinkii wixii qutul daruuriga la cuni lahaa way qaaliyoobeen qiimaha ku darsoomay oo ah dhanka gaariga iyadoo waliba hadda ay fatahaad asaas oo weyn ay ka jirto hadda wali Jowhar waa lagu nooleeyaa ma lagu dhiman haddii aan kaaga warbixiyo qiimaha hadda la gado qutul daruuriga maxaa la raashinka anagu aan iibino loorka sokorta hore waxaa loo gudi jiray 9.20 marka caadiga ahaa 27 28 ugu qiimo badnaa balse hadda wuxuu marayaa meesha ugu raqiisan $34 sidoo kale briiska oo aan jiray 26 27 $30 sida baa la gadayaa burka sidoo kale inta asina waa lamid waa xalqadayaa $30 waa ka baastada $7 iyo $8 tan ugu qaalisan yahay jirtay $9 bar ay marayaan waa ka saliida sidoo kale jirkaanka la gadi jiray 20 iyo 6 iyo 20 iyo 5 iyadoo badeecadu qaali tahay hadda waxa ugu sii darsoomay waxa la yahay fatahaada webiga oo ah in laba baawar la soo kala saaro ama mararka qaar dooman la saaro waxa ugu darsoontay saliidoo kale hadda waxa la gadayaa $30 magaalada Jowhar ayaa go'dan sii galaysa maalinba maalin ku xigta waxaana sii baahaya fatahaada kuwaasi oo ku socda xawaare aan la xadidi karin mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta City magaalada Jowhar